Bismillahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Jooqla Media. Jooqla Media waxaad kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska, waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray xanta suuqa kala iibsiga. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, fadlan subscribe saar, like dheh si uu gaar asxaab badan. aad iyo aad ka mahad celinaa daawashada muuqaalkan. Haddii aan ku horumarno kulamadii xalay, waa habeen wada bareejo ah UEFA Nations League. Habeenkii bareejada in loo bixiyay ayay tahay xalay toole. England iyo Italy ayaa eber galay, halka Hungary iyo Germany gool ay galeen. Netherlands iyo Poland waxay galeen 2 gool iyo 2 gool. Belgium iyo Wales waxay galeen gool iyo gool. Waa habeenkii bareejada. Sidoo kale haddii aan fiirino dhinacan iyo Bosnia iyadan sidoo kale bareejo ayay gashay, halka Scotland gool dare ay qaadatay Ireland. Ukraine 3-0 ayay ku adkaatay. Finland waa la garaacay, Romania ayaa garaacday. Sidoo kale Turkiya ayaa iyadana 2 gool iyo waxba ku adkaatay. Sidaasna habeen bareejo ayay ku noqotay. Maxaa laga rajeynayaa kulamada caawa la filayo? Kulamada caawa la filayo waxaa ugu weyn Spain oo soo dhaweyn doonto Czech Republic, halka Switzerland ay soo dhaweyn doonto Portugal. Kulamadaas ayaa ugu adag, walow ay jiraan kulamo kale. Norway iyo Sweden oo isqabanayo, halka Slovenia iyo Serbia ay iyakan isqabanayaan. Sidoo kale kulamo aad iyo aad u xiiso badan ayaa ka jira UEFA Nations League. Greece dheeli doonto, Georgia dheeli doonto. Kulamo kale waa ay jiraan, Malta. Waa arki doonaa sida ay u dhacaan kulamadaas. Haddii ay soo gabagabowaan is arki doonaa. Maxaa ku saadaali lahayd kulanka Spain iyo Czech Republic, Switzerland iyo Portugal? Sidoo kale qaaradeena Afrika waxaa ka dheeli doonto Algeria oo kulan saaxiibtinimo la dheeli doonto Iran. Algeria ayaa booqan doonta Iran, waa kulan saaxiibtinimo oo kaliya. Waa arki doonaa kulankaasna wuxuu ku dhamaado insha Allah. Haddii aan fiirino dhankan iyo xanta suuqa kala iibsiga, maxaa laga filayaa inteesa wax marayaan heshiiska Darwin Núñez? Ninkaas waa uu soo duulay, wuxuuna u duulay saacadihii lasoo dhaafay dhankan iyo Spain si uu u dhameystiro heshiiska uu tagayo naadiga kubadda cagta Liverpool. Spain ayuu u duulayaa, meeshaas wadaxaajood yar ka jiro Safila. Kadib wuxuu ka shaqeyn doonaa sidoo England ugu duuli lahaa, kadib uu dhameystiri lahaa heshiiska ugu wareegayo naadiga kubadda cagta Liverpool. Spain markuu joogo wuxuu ka shaqeyn doonaa sidii Benfica iyo Liverpool ay heshiis u kala gaari lahaayeen, lagu dhawaaqi lahaa. Kadibna asiga ayaa Ingiriiska u duuli doono, wuxuuna heshiiskiisa ku saxiixi doonaa meeshaas garoonka kubadda cagta Anfield. This is Anfield ayuu dhihi doonaa markiisa. Waa arki doonaa sida hadda lagu soo waramayo. Heshiiskiisana wuxuu noqon doonaa mid 5 sano ilaa 6 sano ah. Ilaa wuxuu joogi doonaa naadiga kubadda cagta Liverpool 2028 sida la filayo, haddayna wax isbedelin. Sidoo kale xanta suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah hadalhayntii ugu badneed laga filayo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. Ayaa la filayaa inay daafaca kooxda kubadda cagta Inter Milan Skriniar qaadan doonto. Heshiis ayaan usoo bandhigtay, walow Inter ay weli ka hadlin barnaamijkaas, ay weli xalinayso in Dybala ay soo xirgeliso. walow arintan daafac in laga qaato ay tahayna arin kale oo aad u muhiimsan. Waa arki doonaa iyadana Inter waxay ku jawaabi doonto. Ma aqbali doontaa heshiiskaas mise way diidi doontaa oo way haysan doontaa xidigaas daafac ugu ciyaaro naadiga kubadda cagta Inter Milan. Sidoo kale hadalhaynta ugu badan waxaa ka mid ahaa xanta suuqa kala iibsiga saacadihii ugu dambeeyay laga qoro. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijiyay in ugu dambeyn Gavi laga saxiixi doono heshiis ilaa 2027-2028 dhacayo. Waxaan lagu burburi doonaa 1 bilyan oo lacag gaarayso. Sidaas ayaanu ku waramay. Sidoo kale wuxuu ka waramay asigoo hadlayo arinka Dembele. Wuxuuna dhahay Dembele waa ciyaaryahan Barcelona ah, walow heshiiskiisa hadda uu dhacayo, laakiin wada hadallo iyo wax waa u kordhinay, waa u sheegnay. Kaliya waxaan sugnaa waa jawaabtiisa iyo inuu wax naga dhaho, laakiin weli ma uusan aqbalin. Barcelona waa sii joogaya, ma uusan dhino heshiis inuu saxiixo
diyaar uma ahan. Sidoo kale waxaa ka mid ah arrimaha suuqa kala iibsiga haysto. Frank de Jong ayaa lagu soo waramayaa in saacadaha soo aadan ama maalmaha soo xiga inuu soo duuli doono dhankan England iyo magaalada Manchester, khaasatan Manchester United, inuu maslax riyada kasoo degi doono maadaama ay isku afgarteen, laakiin lacago yar ee u dhexeyso in heshiiska la hormariyo oo meel fiican la gaarsiiyo. Asigana waa uu aqbalay. Waa arki doonaa iyadan meesha uu ku dhamaado arrinka Frank de Jong, laakiin way ugu cadcadahay. Sidaas bilcagsigeeda, haddii Barcelona fasaxdo Frank de Jong, waxaa lagu soo waramayaa in xidiga kooxda kubadda cagta Manchester City iyo xulka Portugiiska Bernardo Silva uu mari doono dhankaas, maadaama uu Jose Pep Guardiola uu la gargaarayo oo ka caawin doono arrinkaas, maadaama kooxdiisa hore ay tahay, walow mararka qaar aysan shaqeynin arrintaas la rabo in koox la dhisto. Laakiin hadda waxaa lagu soo waramayaa haddii De Jong oo baxo in Bernardo Silva ay meeshaas ku wareegi doonto oo imaan doono hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Frank de Jong anigoo kusii jiro, waxaa hadlay Van der Vaart oo dheh, haddii aan ahaan lahaa Frank de Jong waxaan u saxiixi lahaa Manchester United, shakiba ma aan ka geliyeen haddii dalab uu dhankooda ka imaado. Ma ahayn in lasoo dalbado, waxay ahayd in asiga uu dalbado naadiga kubadda cagta Manchester United. Waxaa kaloo ka mid ah in majaladaha ay haystaan Tommy Abraham iyo Jack Grealish oo shaafta isku kacayaan kulankii xalay ay u baxayeen xulka kubadda cagta Italy. Ma iyagaaba isdaafacaya ayaa leeyahay, waa laba weeraryahan Abraham iyo Grealish oo aan ogeyn in Manchester City uu ku dhibanaa, haddana England ayuu xogeeyay in ciyaartoydiiba shaafta oo la kaco, waana maadeysi oo kaliya fila. Grealishna waa lagu dhagan yahay, waxaa leeyahay England ma adigaaba kasoo horjeedo daafacyada Italy ka tirsan, Abraham ayuu shaafta aan caadi ahayn la kacayaa. Sidoo kale waxaa lasoo saaray liis xidigo ugu qaalisan kooxda kubadda cagta Real Madrid, laakiin aan ka hormariyo rasmi. Dujinami waa ay lagu dhawaaqay naadiga kubadda cagta Real Madrid ayuuna ka tirsan yahay, heshiis ilaa 6 sano ayuu saxiixay. Xidigaasna waa burburi caalami ah, waana arki doonaa wax uu kusoo kordhiyo wax oo ka jira naadiga kubadda cagta Real Madrid. Sidoo kale waxaa lasoo saaray qadka dhexe ee mustaqbalka El Clasico, waa xidigaha kale ah Real Madrid oo ay u safan doonaan Dujinami, Camavinga iyo Valverde ayaa la leeyahay qadka dhexe ee mustaqbalka waa ay noqon doonaan. Sidoo kale qadka dhexe waxaa lasoo saaray naadiga kubadda cagta Barcelona oo ah De Jong, Gavi iyo Pedri. Waxaa leeyahay El Clasico 6daas qof ayaa dhexdooda mustaqbalka qabsan doonto. Waa iska hadalheen, laga yaabay ciyaartooy qaar in laga gato. Saawad ognahaybo xidig hadduu soo baxyo naadiyaal badan ayaa qoorta dadku ku dhago, Paris ay ka mid tahay, qarashaadka indhaha leh lagaga soo firdhinaa. Waa arki doonaa. Sidoo kale waxaa lasoo saaray arrinta Dujinami anigoo ka dhex bixin xidigaha ugu qaalisan naadiga kubadda cagta Real Madrid ee suuqa kala soo wareegtay. Dujinamina wuxuu ka galay booska afraad sida lagu soo waramayo. Waxaa ugu sareeyo oo naadiga kubadda cagta Real Madrid ee la soo wareegtay 126 milyan oo ay kula soo wareegeen Eden Hazard 2018 Chelsea ayayna kasoo qaateen. Sidoo kale 181 milyan Gareth Bale ayay kula soo wareegeen 2013 Tottenham ayayna kasoo qaateen. Sidoo kale 103.4 milyan Cristiano Ronaldo 2009 Manchester United ayayna kala soo wareegeen. Waa xidiga afraad 88 milyan. Aaron Dujinami 2022 ayay la soo wareegeen, Monaco ayayna kasoo qaateen. Sidoo kale waxaa ka mid ah Zinedine Zidane oo asagana lagu soo wareegay 85.3 milyan 2001 Juventus ayayna kasoo qaateen. Sidoo kale waxaa hadalhayn qabsaday macalinka kooxda kubadda cagta Real Madrid Carlo Ancelotti oo noqday macalinka kaliya ee ku guuleystay 5 horyaal ee qaaradda Yurub ugu waaweyn: Bundesliga, Ligue 1 Faransa, Spain, Talyaani
iyo English Premier League. Mana la bunbuniyo, waana macalinka kaliya ee qaaday 4 hoolyaal oo qaaradda Yurub ah. UEFA Champions League 4 jeer macalinka kaliya haysta waaye, wuxuuna qaaday 5 hoolyaal ee qaaradda Yurub. Ma ahan macalin la bunbuniyo, laakiin waa macalin shaqeysto. Haddii aan kusoo gabagabeeno laba eray, Marcos Alonso ayaa weli lala xiriirinayaa naadiga kubadda cagta Barcelona. Waxaana la soo waramayaa in Barcelona weli ka shaqeynayso inay heshiiska la gaarto ayna soo dhaweysato xidiga garabka bidix uga ciyaaro naadiga kubadda cagta Chelsea iyo xulka kubadda cagta Spain. Marcos Alonso ayaa lagu soo waramayaa in Barcelona uu ku wajahan yahay. Sidoo kale Manchester United ayaa Garnacho heshiis cusub ka saxiixan doonto sida lagu soo waramayo. Xirfadlahan reer Argentine ayaa caadi ahayn, wax la deysan karna ma ahan. Sidaas ayaana majalladaha kusoo waramayaan, waan arki doonaa sida uu ku dhamaado barnaamijkaas. Sidoo kale barnaamijkeena waxaan wararka kusoo gabagabay doona ka tirsan Inter Milan ayaa heshiis shaqsi ah la gaartay, waxaan usoo bandhigtay Paulo Dybala heshiis 4 sano ah oo sanadkii ku qaadan doono 6 malyan. Waan arki doonaa sida uu aqbalo iyo ku dhawaaqista iyo heshiiskiisa waxyaalaha ka mid ah sida heshiiskiisa sida uu ku dhamaado. Sidoo kale warkeena waxaa kusoo gabagabay doonaa heshiiska afka ay la gaartay iyo shuruudaha shaqsiga Renato Sanches. Naadiga kubadda cagta AC Milan ayaana weli rajo ka qabto Renato Sanches in uu kusoo biiri doono naadiga kubadda cagta AC Milan, maadaama uu xidigii qadka dhexe ee Ivory Coast uu ka tagay Frances, wuxuuna ku biiray naadiga kubadda cagta Barcelona. Barca ayaan la filayaa in maalmaha soo socda ku dhawaaqdo, laakiin Renato Sanches ayayna iyadana wajahaysaa. Waa arki doonaa meeshuu ku dhamaado, walow hadda shuruudaha heshiiska shaqsiga isla meel dhigeen Renato Sanches iyo AC Milan. Haddii aad nala soo gaarto ilaa finaalka, waxaa ka codsanayaa inaad like saarto, subscribe dhahdo, siina share gareyso. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.